السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أصحاب تقاليقة دمانتين سو دواذا بليز سو دواذا هوغل channel and also please subscribe for me share and like also قنبلال كتابة هدي إلهي كرال نقضي سي آئي لسعوتين ما أنتو وحان ربا إنا إذن wadaago wax yar oo ma arkino ku saabsan ilmaha autism-ka maasha Allah caruurta aniga waxaa ahay hooyo ka mid ah hooyooyinka haystaan ilmaha special need-ka gaar ahaan ilmaha autism-ka waxaana haystaa alxamdu alshukri 4 cunug oo ah special need inkasta oo kuwa aan ahayn aan horey u haystay laakiin haddana ilaahay wuxuu siiyey 4 kale oo special need maasha Allah wax badan waa soo harjaday wax badan harjad kale waa ay dhiman yahay laakiin waxaan maanta rabaa inaan la wadaago hooyooyinka uu ka cusub yahay ama ma arkino haddaba haystaan ama gabdhaha yaryar ama hadda kow ma arkino cunuga aan fahmayno waxa lagu kasay aan garanaynin aniga intaan horta sheekada idin sii galin aniga waxaan waxa waa time table ilmahayga waxa uu dhigaa darbiga ugu dhajiyay soo marka shanta ilaa 7 bari ilaahay waaye wixii aan sameynayno waa u sii sheegaa wixii berita dhacayo oo u sii sheegaa hadii ilaahay ka raali noqdo ay dhacayaan hadii ilaahay ugu talagelin ma dhacayaan laakiin tuleeda noom second day iyo maalintaas waxaan sameynayno tan kaleetana waxa waaye dangerka iyo cunuga ma arkino inuu no bishin no hitin stop amal because fishing wax ku bartaan aragti especially markay hadleenin oo non verbalka ay yihiin sida qabeeski oo kale adi routine night-ki waaye hadda kaas oo kale kan morning routine-ki waaye ilaa iskuulka laga aadayo marka way u fiican tahay inay ma arkino indhaha ay wax aad uga fahmayaan hadalkii maadaama ay kugu soo celin karin waxaa kaleete buugaanayte same thing waaye marka fission waaye isagana cunugii will communicate all about so marka meeshaas sharowta anaa saaray cunugeyga picturekiisa ku sawiran marka anything oo object ama uu ku ciyaaro ama game ah meeshaas uu ka taabanaya and then waa suubinaysaa intuu ku riixi lahaa ama gacanta ku jiidi lahaa ama uu kugu sameyn lahaa raashinkana saasoo kale waaye cuntada isnaaga biyaha caanaha wuxuu rabo oo dhan saas ayuu kugu sheegayaa iskuulka ayaan ka codsaday inay iisoo sameeyaan ayagaa iisoo sameeyeen marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inay iisoo sameeyaan adigana waa ka codsan kartaa si ay kuugu dhib yaraato especially cunuga markuu 3 to 5 intuu jiro aada ula dhibtoonaysaa marka kan waa iskuulkii baagii waxaas oo dhan this side-na waxaa waaye facial expression-kii cunuga duu jiran yahay is easy to tell you gacmaha dhaqdharka gasho bas is right here oo ma arkino waxaas dhanna cunuga meeshaana ka ogaanayaa asagii adigina waa idiin fududaanaysaa marka wax walba oo caawimaad ah oo u baahatid ha ka xishoonin iskuulka aad iyo aad ay ku caawinayaan macallimiinta dee oo waxa waaye supporter maasha Allah waalidiinta special need-ka haystaan headphone-kan waxaa la dhahaa ear defender la dhahaa ilmaha qaylada ambalaaska iyo suuqa crowding people-ka inkastoo hadda corona lagu jirooba meel buuqa la tegin laakiin way u fiican tahay marka cunugii meltdown ma sameynaa dhulka isku markaa qaraacayo dhagihii ma qabsanayo si smooth uu kula soconaya labadan dhalana waxaa waaye ilmaha for example habeenkii kan waxaa waaye ma jiifanayaan hurdadu way soo kacayaan soo haddaa u marisid lugaha wax la cabaaya ma ahan ila socda waxaa u marinaya lugaha habeenkii u marinaya balaas dhabarka ama xabadka ugu tiraya wax yar dhiruu ka samaysan yahay iyo balaaneed kan kaleetana waa saasoo kaleete ilmaha very active-ka ah oo boodboodayo fariisanaynin inta ku bood inta ka qabo waxaa waaye adiga nafsa tale kuu tahay maskaxdan yarta ah maanta dhan wax maka dabaroori kartid cibaado iyo ilaahay kugu xiran waa daalay marka cunugii wuu kuu dagaagay lugaha u marinaya asagana markuu soo jeedo obviously dhabarka iyo waxaas u marinaya cunugiina wuu kuu dagayaa wax yaroo kaam uu hela aniga kolley waa ku faa'iiday gabadhii rabto snapchat-kayga ha igala soo xiriirto waana idiin soo sawiraya next video insha Allah Amazon aan ka dalbaday meesha saa u dalban laheedeen waa idiin soo sheegaya oo haddaa rabtid meesha saa ka akhrisanay hadda dan waxaa ku qaraacaysaa
amazonka dan waa helaysaa insha allah. waxaa waaye ilmaha waxay sameeyaan qaar waa very active, wababoodayaan, hyper active waaye. waxaa lagu garanaa dhagahay qabsanayaan, buuqa ma ogolo, qaylada way oynayaan, way scream garayaan, qaylo waxay sameynayaan hurdada ka tagto, habeenkii ma seexanayaan, finger flips waxa loo gacmaha ka filigsiiyaan, up and down, kor iyo hoos, ma arkino dhabarka sas kursiga isugu ruxayaan. waxay kala sameeyaan spinning, ayaga iswareejinaya, ma banoogaya cunuga maanta dhan wirraf cunugba si waaye, laakiin cunugba nooc waaye. afartaydaas cunugba nooc u ahaa, aan ayakana isku si wax uma bartaan, isku si wax uma fahmaan. qaar hadlayaan haystaa raadi camal jabay u hadlayaan maasha allah, iyo haddana qaar aan hadlaynin, qaar laba eray dhahaya, single word qaar dhahayo, waxaas dhan ma fahantay. marka ilmaha isku mid ma ahan. hooyooyinka maasha allah ilmaha special needka haystaan way dadaalaan, cirkii dhulkay u maraan cunugooda. markii saas loogu sheego waa ogahay kursiga ay si fiican uga kacdaa, dhaxdana way u xirataa maasha allah. kheyr allaha siiyo. waxaa waaye waxaa kaloo lagu ogaadaa cunuga salafaamin oo isku sameynaa oo isqaniinaa, ama ilmuhu qaniinaa, timuhu iska rafaa, meltdown wax la dhaho sameynaa magaalada oo kale. waxaa waa wareeray ma fahantay. marka waxyaabahaas dhan ay qabaan. early cunugaada sabood u raadsatid, oo markaa waxyaabahaas ku aragtid aad dhakhtar la xiriirtid, oo pediatrician oo health visitor aad la xiriirtid, damoor cunugaadii uu dhaqso wax helo, oo sabood helo, 1-to-1 helo, caawimaad helo, waxbarashadiisa, educationkiisa, all that ayay noqonaysaa. marka ilmaha caadiga xataa inta maskaxdooda ay yartahay aad wax u fahmaan. marka hooyooyinka qaar do not ignore cunugaada haddaa waxyaabahaas ku aragtid. qadarulaahi maasha allah waa wax ilaahay keeno waaye. qof muslimka waa la imtixaan ilaahay ka mid tahay. marka ha cabsanin, ha baqin. haddaa xataa haysatid cunug oo special need ah, ha gabanin. haddii lagu dhaho cunugeyga waa autistic dheh, autism waaye cunugeyga, wax kaa qaadi karaan male bini aadan, wax ay kaa goyn karaan male. moor aa gagabatid, moor ay ku jeys garayaan waaye, ku daba ceyrsadaan. say alxamdulilah all the time, nicmatu rabbi waaye. dumarka ayagana saasoo kale, ani niman maba arkin, laakiin dumarka hooyooyinka markay gaardanka iyo baagaga keensadaan, ama ay meelaha iskuulka ku arkaan cunugiioo rafanayo oo dhibaayo, oo ilmo xanuunsan ay haystaa dhahay, hadhihina cunug xanuunsan ma ahan, waa cunug learning difficult haysta, cunug faleebo ku runkiban ama dhisiis qaba ma ahan. ilaahay waxaa waa idinkana ha idinka haayo. laakiin beri inay gabadhaas dhali doonto caytamayso, oo next childkeeda oo ay dhali doonto ama uurkeeda ku xigo oo noqonayo ma oga. qofka islaamka u ducee, adigana si ilaahay ma arkino uu ku nabadgeliyo, qofka adoomadiisa adigana u nabadgeli, u ducee. sidaas yeel. gabadha kaleeta ha baqin, wixii caawimaada u baahan tahay ha cabsanin. abaayo cunugeyga sidan waaye kama jiifto. hooyo family noqda. hooyooyinka ilmaha special needka haysta xataa family la noqo, you will get experience that the other man has, ma fahantay. so marka maamo kasta waxay haysta ayaa helaysaa. ilaahayga subxaana qaadirka ah hanoo kii hadlayna hanoo hadalsiiyo, kii hadlaayana wixii ka dhiman hanoogu dhammaystiro. ilmo suuxdin qabaa jiro, ilaahay hooyooyinka ha u caafiyaan. waxyaabo badan oo lagu gartaa jiro. marka ilaahay idankiisa intaasaa maanta idinla wadaagayay. kheyr allah idin siiyo, jasadiina janna saa ii daawatiin. aada aan ugu faraxsanahay. waxyaabo badan idinla wadaagi doonaa. waxaa ahay hooyo experience u ah ilmaha special needka. maanta ma sahlano hooyo 4 haysato, ciyaara ma aha, wax badan ayaan ka ogahay. marka hooyadii su-aal ka qabta, ama waxa oo maanta ay ka shakisan tahay ka qabta, ay soo weydiiso. hooyooyinka cunugooda ka shakisan ha ignore garayna cunugaada. wallaahi waad hakranaysaa haddaa cunugaada wax qabaa dhahdo, iska fiicnaan doona. beritana markuu 10 sano gaaro iskuullada lagu bulooyin garayna, hadhowna waxa lagu qaban waaye, ama sidii shalay uu caawimaad u heli lahaa oo u caawinayn. because cunugii moor uu independence noqdo, ama kabihii gashan karo, dharkii gashan karo, wax samaysan karo. waxaa waaye waa dadkan statementiga iyo waxaas iyo saboodka iskuulka soo qoray wuxuu ka hadlay raacayaan, waxa lagaa caawinayaan mala. cunugaadina waa hagrate. so ilaahay jid qodxal hadduu kugu talagala waa mare, koo isboonye, koo biyo, koo raaxe. marka ifka korkiisaabana loogu talagala waxaas. marka abaayo kor isku soo qaada, hooyo ad adag iska dhiga. maasha allah saa ii daawatiin, maasha allah tabaarak. waa ku mahadsantiin boqolkiiba.